tababar siinta iyo ka warhaynta ciidanka ka howlgala nabadgelyada waxa ay keentaa in la helo nabadgelyo waarta. waxaa magaalada Qabridahare lagu qabtay tababar la siinayay ciidanka booliska ee ka howlgala magaalada Qabridahar. tababarkan ayaa ku saabsanaa kobcinta garaadka aqooneed ee ciidanka booliska ee ka howlgala magaalada Qabridahare iyo fulinta bayaanka xaaladda degdega ah ee uu dalka uu ku jiro in faham buuxa laga siiyo ciidanka. waxaana furitaankii tababarkaasi ka hadlay ku-xigeenka duqa maamulka magaalada Qabridahar mudane Weli Xasan Kaahin iyo komishinka booliska ee maamulka magaalada Qabridahar Korneyl Xasan Cabdi, kuwaasoo ciidankii tababarkaasi qaadanayay ku booriyay inay noqdaan kuwa mar walba heegan ugu jira xaaladda nabadgelyada ee magaalada Qabridahar, bulshadana u sameeya dabacsanaan. tababarkeena wuxuu ku saabsan yahay sareynta sharciga, kobcinta garaadka aqooneed ee sharciga si loo fahansiiyo saraakiisha ama xubnaha ama kala gedisan ee tababarkan qaadanaya si loo kordhiyo garaadkooda aqooneed isla markaana ay u fahmaan faham buuxa oo qaadan lahaayeen habdhaqanka iyo la qabsiga siyaasadeed ama sharci sareynta sharciga in ma garanaysa la fahansiiyo bulshada. sareynta sharcigu wuxuu muhiim u yahay ama ma garanaysa damaanad u yahay bulshada. markasta waxa taqaana ma ku sheegaa tababarku sidiisaba waa xusuusin way qofka aqoontiisii iyo cilmigiisii isaga u leh, haddana shuruucdii iyo tababarka markii la qaadanayo shuruucdii iyo wuxuu ku qatoma waxaa muhiim ah inuu qofku dib u xusuusto shuruucda iyo nidaamka sharciyeed ee sareynta sharciga. tababarkan waxa lagu qabtay sharcigii layna soo baray ee aynu dugsiyada aynu ku soo baranay ee kharashka badan laynagu bixiyay ee tababar ahaa ee cashir ahaa ee shuruucda dalka ahaa in dib leydin xusuusiyo leydin abdheergeeyo oo ma garanaysaa dib ma garanaysaa cashiradeenii hore aynu soo qaadanay aad dib u xusuusataan sareynta sharcigana aad sida ahayd loogu dhaqmo loo baahan yahay dadkana la baro la fahansiiyo awaajka degdega ana ma garanaysaa sidii loo fulin lahaa iyo awaajka degdegii wuxuu ku saabsan yahay laftiisa in la fahmo oo ciddii aan fahmin inay fahanto ayuu horta ku saabsan yahay. muddada 2 cishaana wuu inoo socon haddii alla idmo. marka waxaan idinku boorin lahaa inaad si fiican inaad cashirada u qaadataan, macallimiinta idin dhigayana aad si fiican ma garanaysaa cashirada aad u qaadataan.